waxaad tagtay sariirtaadii markaas ayaad dhabanka saartay barkintii waxaad is hor keentay dhammaan howlaha berri kuu qorshaysnaa ee aad jeclayd inaad qabato howl hebel iyo howl hebel iyo howl hebel iyo howl hebel sidii ayaad ku seexatay subaxii ayaad soo kacday waxaad aragtay inaadan midna aysan kaa hayn inaad u dhaqaaqdo amaad qabato tilmaantee isa siin lahayd caajislow ayaad soo bixin lahayd soo maaha ukaadi inta badan dadka sidaa ayaa soo wada marta caajiska waxa uu yahay iyo weliba tallaabooyinka looga dawoobi karo loogana cayman karo ayaan waxaan uga hadli doonaa kulankeena maanta ee kelmadiisu tahay sida looga caymado caajiska. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. caajis ahaayo caajisanahay waxaas ma qaban karo caajisa iga hortaagan hortiisa caajisku muxuu yahay? caajisku wuxuu yahay in aadan qabanin ama aadan u dhaqaaqin wax kaa sugayay qabasho ama u dhaqaaqid. Marka sababo fara badan u samee inaadan rabin inaad qabato ood uga baaqsanayso ama aad uga leexanayso ama aad uga marmarsiyoonayso qabashadeeda. caajiskaas sababkiisa kaliya tam inaad raaxo bis rabtid miya soo ma dhici karto mararka qaar in howlo fara badan aad qabatay enerjigaagii iyo taaqadaadii tamartaadii aad soo adeegsatay oo aadan waxba kale ku dari karin ay naftu ku tiri bis kifaaya ku filan intaan way dhici kartaa. waxa kaloo dhici kara oo kaa horjoogsan kara in aad adiguba cuslaysanayso in hawshan aad u dhaqaaqdo rabin waa nasan tahay ama nasiinaad haysataa yacni ma daalnid culays kale kuma haysto laakiin waxaad ka baaqsanaysaa inaad u dhaqaaqdo wixii laga rabo inaad qabato. waxa la yiraahdo caajiska sidiisaba waxa asal u ah fikrad gudahaaga ka guuxaysa ama dareen gudahaaga ka daaran. يعني waa natiijo caajiskan aad u jeedid wuxuu yahay natiijo ayuu wuxuu u yahay sababo gudeed macna gudahaaga ayaa waxa laga yaabaa afkaar inay ka guuxayaan kugu beeraya caajiska kaan hor istaagay in hawsha aad qaban lahayd aad qabato amaba dareen aad hadda dareensan tahay oo ciriiri ama wax inaadan rabin ama inay sanka ka saaran tahay inaad waxaas u dhaqaaqdan ma ka hayso. طيب asalka waa maxay marka? asalka waa gudaha waa dareenkaas gudaha kaaga daaran ama fikradaas maankaaga ku dhex wareegayso maskaxdaada ka guuxaysa. labadaa markaa garata marka ayaa fahmi kartaa waxa uu yahay caajiskan ama waxa uu yahay u dhaqaaqid la'aantan haddaan si maaragtay hoose aan u dhigo yani inaad waxaan u dhaqaaqin waxa kaa hortaagan inuu yahay caajis u baahan inaad ka baxdood ka xoroodo inuu yahay iyo inaad asaasan badaalan tahay ood aad isticmaashay tamartii loo rabay in howl kale aad ku qabato. sida tusaale ahaan qof hadduu uu jiimka aadoo kale waxaa dhacaysa marar fara badan in maalmaha hore xamaasad uu qof ku galo marka haddii coachka jiimka dhigaya uu joogo kale aad uga ilaaliyaa qofka oo si tartiiba ayaa qofka loogu kordhiyaa exercise uu sameynayo iyo jimicsiga uu sameynayo. haddii lagu sii daayase mashiintii lagu ordayo ku orod kii baaskiilka kaxee wixii dhan hal maalin inuu qabtuu rabaa fa marka maalin iyo laba ayuu wuxuu ku qaramsanaya oo ku cunayaa enerjiga uu rabay inta soo hartay oo marka joogteyntii inuu sii wada meesha ka baxayso oo uu ka caajisaya. marka caajisku waa arin ilbiriqsi oo xilliyo qofka soo maraya naftuna ay ka helayso oo dhankiisa ay u iilanayso oo ay rabto oo maanta inaad iska jiifto lugaha isa saarato oo wax walba fadhiga lagu keeno naftu iska jeclaanaysa laakiin inuu wax aan wanaagsaneyn yahay ama dhaqan aan qurxooneyn yahay waxaad ka dheehan kartaa sida nabigeena sallallahu alayhi wasallam uu uga magan galay Allah subhanahu wa ta'ala innagana noo baray inaan ka magan galno caajiska. Allahumma inni a'udhu bika min al-'ajzi والكسل عشرك قيبت أنا كهل إنه حوالي كسل وعجزك عربت أنا عاجز أنا لكن عربي عجزك يكسل كلامه كليه. طيب مرة من إنا قلنا تفاصيل دار لكن وحيد عدا سنتوسيسا إن لقن أن وناك سنين وياها عاجزك وح مضن إن لقى داوبه أو لقى بحه أو ليس كبدله أو لدوريه مضن إنه ياها ومحي مركة اللابوين كنوع عاوين كرا إن كبحنو عاجزك أما أن إسكدوينون إسكبدلنو
oon ka caymano. Talaabta koowaad waxay tahay in aad gabalayso hawsha aad rabto inaad qabato eed ka caajisayso. hawsha aad rabto inaad qabato eed ka caajisayso soo qabo, gabal ka dhig yar kadibna bilow inaad gabal u haramsatood u laqdo. dadka intooda badan caajiska ka sheegta markaad wareysatood la fariisato waxaa kuu soo baxaysa in ay marka horeba hawshan u dhaqaaqideeda cuslaysanayaan oo dhibaatadu halkaas ay ka taagan tahay. marka haddii hawsha aad cuslaysanaysay aad inta soo qabatood gabalayso, waxaa sahlanaanaysa inaad si sahlan ugu dhaqaaqdo. ogow hadde hawl adiga kula culus oo kula adag ayaa qof kale waxba yahay la ah oo aad ula sahlan. tusaale ahaan gabdhahoo kale, gabadha waxaa laga yaabaa guriga iyo hagaajintiisa waxaas inay ku culus tahay, biloobideeda ay ku adag tahay. mid kale waxa ka guri hagaajintiisa muxuu yahay 30 daqiiqo hadda uga dhex bixi karaa aniga kulli hawsho dhan. marka haddaad u tagto qof 30 daqiiqo kaliya ku dhahaya aan looga dhex bixi karaa waxoo dhan hal mar la wada qabanayaa, waa laga yaabaa in cajis ku sii bato oo dhahdo tan waalan aniga. laakiin adigu isqiyaas, hawshan adiga culays ay kula muuqataa, qof kale iska dhaaf. adiga marka sidee u qaabilaysa hawsha iyada? waa inaad soo qabato kala qaybiso. tusaale ahaan gurigii oo kale tiraado fadhiga oo kaleeto aan saacada soo socota hagaajinaya, hadhowta duhurkii oo kaleeto alaabtaan dhaqaya. tusaale ahaan marka saas u kala qaybiso marka waxa kuu sahlanaanaysa inaad mid walba aad soo qabato halamsato. alaabta labaad ee xigtaa waxay tahay inaad diiwaan geliso oo aad qorto alaab kasta ama qayb kasta ee shaqada ahayd aad qabatay. tusaale ahaan hawl isugayso 5 aan u qaybiyay ayaan midii koowaadii labaadii saddexaad aan qabtay, mid walbana ay qoran tahay qaybtii aan ka qabtay. hadhowt markaan fiiriyo waxa ii soo baxaysa 2 iyo harsan kaliya soo maaha. xamaasad iyo dhiirigelin helaya marka oo gudaha ka timid. ogow banaanka igama imaan, gudaha iiga timid. xamaasadaas marka waxay igu beeraysaa inaanan ka caajisin intii yareed ee harsaneed ee aan ku dhaqaaqo. haddaba diiwaan gelinta waxyaabaha kuu qabsooma ee aad qabataa waa muhiim. taas waxay ku tusaysaa inaad hore u socoto, waxay kuu noqonaysaa halbeeg iyo cabir ayay kuu noqonaysaa, kuu sahla halka aad ku socoto iyo meesha aad ku jeedo inaad garan karto. talaabta xigtaa waxaan leenahay aragtidu ha kuu caddaato, yacni ujeedada aad waxaan u qabanayso waa inay kuu caddahay. waxaan haddaan sameeyo maxaa ka helayaa? saa daradeed waxaa arkay qofkii sidaan sameeyo ajarkaasuu helayaa, qofkii kan qabto jannaduu galayaa, qofkii saan marka in nafta lagu xiro oo related looga dhigo natiijo la siiyo ay ku dhiirigelin ay ku hesho gudeed wax muhiim weeyaan. marka waa inaad garan karto hawshan markaa qabto faa'iidada aan ka helayo, ama mid hadhow ha ahaato ama mid aaniya ha ahaato. tusaale ahaan shaqadan haddaan qabto, buuggan akhrintiisa haddaan dhameeyo, nafteedaan casuumaya, waxaan ku casuumayaa koob latte tusaale ahaan oo aad iyo aad cajiib u ahoo si cajiib uga soo carfayso qaxwadii. yacni qof walba wuxuu jecel yahay hawsha aad qabataa iyo waxa aad xaqiijisaa daba mari dhiirigelin aad nafta u samaynayso, adiga aad isu samaynayso. casuum naftaada, u dabaaldeg guulaha yaryar ee aad soo hoyeyso, wax muhiim weeyaan. waxaa sidoo kale isku daydaa inaad imagination ku samayso ama takhayul ku samayso ama aad ishor keento ood suuradaysato hawshan adoo dhameeyo kale, fadhigii iyo gurigii kala qurxis. yaa salaam, carafti bakhurkii xaggaas ka baxay, fadhigii kala qurxsan, maaragtay madbakhii iyo jikadii oo aad u nadiifsan oo quruxsan, raaxada aad dareemi kari lahayd imagination ku samee. marka taa waxay kugu caawinaysaa inaad si sahlan ugu dhaqaaqdo shaqadii adiga oo dhiirigelinta ka helaya macaankaas dambe ee hawsha marka qabato kadib aad heli doonto. talaabta u dambaysa waxaan leenahay ka fogow caajislayaasha, dadka caajiska ah ka fogow. falyandur axadukum ilaa man yukhaalis. waa nabigu ma dhihin saaxiibku waa ku soo jiidanaya, saaxiibku dhankiisu kuu soo sidbinaya. marka waa inaad garan karto caado aan wanaagsaneyn markaa rabto inaad ka fogaato ka baxdo qofkii lahaa ama qof ku ibtilaysan inaad ka fogaan karto oo waqtiga aad la qaadan jirtay maalin kasta saacad hadduu ahaa 15 minutes ama 20 minutes aad kusoo koobi karto 15 daqiiqo 20 daqiiqo kaliya ka dhig, soo gaabi. sababto way adag tahay inaad caadadaas cusub kasbato ama aad ka baxdo dhaqankii hore adiga oo ay kuu hareereysan yihiin dad u sacabtumaya dhaqanka hore oo wax wanaagsan u arka, soo maahan? saa daraadeed iska ilaali inaad
ka agdhawaato dadka leh dhaqanka inay wax walba ka caajisaan, dhaqanka wax walba inay cuslaystaan, dhaqanka inaynan dhaqaaqinba ah. mahadsanid.